waxaa habeennimadii xalay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal si rasmi ah loogu daafuray suuq ganacsiyeed loogu magac daray Ramadaan Bisaar suuqani oo kulmiyay ganacsatada kala duwan ee dalka kuwaas iyo iskaga kala yimiday gobolada iyo degmooyinka dalka ana daafurka suuqani ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenno gudoomiyaha gobolka Awdal maayir ku-xigeenka degmada Boorame qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Boorame dhamaantoodna soo dhaweeyay suuqani cusub ee loogu magac daray Ramadaan Bisaar ugu horeyna munaasabadani waxa ka hadlay isla markaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeedooyinka iyo ahdaafta ay kala yihiin ka sheekeeyay gudoomiyaha mas'uuliyiinta soo qaban qaabisay Ramadaan Bisaar sidoo kale waxa ku taalo xanuunaya nabarka madaxda qaalisay waa suuq Ramadaan kelmadu waa iska suuq Ramadaan loogu talagalay international caalamka duulka la qabto oo kiiska Ramadaanada mararka kala wada sababta hada oo waxa weey waa suuqii marka hore oo Ramadaan inta dambe waxa jirta adeegyo badan oo ciidii la soo dhawaado la soo dhawaado dadku shopping badan ama wada dukaanista sababta waxa weey in ganacsatadii alaabaha kala duwan haysi waa suuqii horta ugu horeeyay Soomaaliland laga furo in ganacsatadii alaabta haysi dadka ugu talagalay intii meeshooda joogi lahaayeen ay isugu yimaadaan suuq xor ah qof walba ka soo qayb galo suuqaas oo soo bandhigaya marka alaabaha kale faa'iidada uu leeyahay alaabaha dhammaan ganacsatada meesha lagu helay alaabaha way intaasi kadib ayaa iyaguna waxa madashani ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Boorame Cumar Ilaahay Jimcaale iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Ramaax ayaa waxay sheegeen gudoomiyaha gobolka oo dhammaan dadka gobolada kala duwan ay marti u yihiin Ramadaan kullu way beegnay maanta Ramadaan bay laga beegtay hase yeeshee waa xilli ganacsatadu aad iyo aad ay runtii u xiisayso waxyaabo badan oo adeeg badan oo qofku suuq badan u wareegi lahaa laga yaabo dhowr iyo soddon ganacsato iyo inta badan oo iman doonta inuu qofku adeegkii uu baahnayo uu ka wada helo intaasi kadib ayaa iyaguna waxa hadalada iska daba qaatay wasiirada iyo sidoo kale agaasimayaal guud oo ka soo qayb galay munaasabadani ayaa waxay sheegeen iyaguna isu soo xilsaaran aad iyo aad u mahadsanyihiin ama qoran in xisbiga kulmiyeed iyo xukuumaddiisu ay dhiirigelinayaan oo ay taageerayaan ganacsiga xorta ah iyo maalgashiga dalka taas waa siyaasadda xisbiga kulmiyeed suuqan halkan ka furay baasaar oo ah sidii xogayuhu u sheegay niman dhallinyaraha oo wax weyn kusoo kordhiya dalka salaan kadib waxaa farxad weyniya runtii aan ka soo qayb galo Ramadaan Bisaar oo runtii iyada darteed oo dhammeeya nafteeda magaalada waa fursad wanaagsan isku soo wada duuba mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay daafurka munaasabadani Ramadaan Bisaar ayaa waxa ugu dambeyntii kormeero ku soo mareen goobaha ganacsiyada ee laga furay gudaha suuqani wa Cabdilaahi Daahir Wacays TV-ga caalamiga Bulsho TV magaalada Boorame.